عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول إلهي بمهله حلواننا قلا وكيلنا قدوميها قرك توفيق iyo gaadileedii mas'uuliyiinta halka fadhida dhamaantood aad iyo aad baan salaamayaa munaasabadan maanta loo qabtay in la furo qayb kamida ururka ama iskaashatada tawfiiq oo halaanta taraalka runtii waxa muujinaysaa dadaalka iyo isbedelka ka dhacay iskaashatadan oo hoggaanka nimanka haya marka hormuud yihiin iskaashatadan tawfiiq oo iskaashatada ku midoobeen dhammaan gaadileeda Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku waxay runtii sida waajibaadka qaranku u xil saareen iyadoo gudanaysa waxa runtii aan doonaynaa in gaadiidleyda reer Soomaaliland ay noqdaan qaar markaa tayadoodu aad u sareyso si markaa ugu shaqeeyaan muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo dadka ajnabiga ee wadamada jaarka ee markaa adeegga uga baahan dekedeennii waa la balaadhiyay ogtiin qaybtii hore waa dhamaatay si fiican bay u shaqeysaa qayb labaad baa lagu daray dhawaan bilaabmaysa wadadii waadika arko waa la casriyay wadadii berbera ilaa wajaalan yar ba ka dhiman 180 waa dhameystirantay airportkii waadika arka waa la dhameystiray free zone ka imika bilaabmay waxaasna wuxuu socdaa wax weeyaan marinkan berbera corridor siyaasadda guud ee xukuumaddu ka leedahay oo ah in dhaqaalaha dalka kor lagu qaado waxa soo socda markaa adeeg fara badan oo laga doonayo reer Soomaaliland ba soo socda qof kasta muwaadin oo reer Soomaaliland oo ka tirsan gaadiidleedan iskaashatada gaadiidleyda tawfiiq waxa la doonayaa markaa inuu diyaar garoobo inuu gaarigiisu noqdo gaari markaa qaadi kara xamuulka geyn kara markaa wadamada Afrika dekedeena markaa isticmaalaya oo dalkan Ethiopia jaarkana markaa ugu horeeyo Djibouti ilaa wadamada kale marka idinka tawfiiqan waxa la idinka baahay horta si fiican ba isku aawsheen laantii tareenkana waa idinka sameeyay oo tawfiiqan ka tirsan in markaa darawaliinta gawaarida idin wada sida horena aan ku sheegnay inta baran la siiyo shuruucda la baro akhlaaqdooda runtii iyo magaranaysa hab dhaqankooda aad iyo aad loo hagaajiyo marka dalka dhixiisa marayaan iyo marka dalka jaarka tagaano de kaba sii daran oo dad ajnabiya aanu kala dhaqanahay qaar laga yaabo in kala diin noqono markuu qofku dhaxmarayo waxa loo baahan yahay aad iyo aad u taxadar sharcigana ilaaliyo akhlaaqdana ilaaliyo Soomaaliland magaceedii wata ururkii gaadiidleyda Soomaaliland wata hadii laga soo cawdo waxa noqonaysaa ceeb bay noqonaysaa si maanta dhacdo kala haduu qof yiraahdo halkii dagaaladu ka dhacay ma soo eegaya waa yar mushkilad weyn qof dhan mas'uuliyada oo darawala oo gaadhi wada oo magaca Soomaaliland ku socda oo dalka lambarkii Soomaaliland ku galo sharci ku galay in shaqadiisii shaqaanayn markaa uu galo iska ama daawasho kala ma dalxiis waxa ka soo jeeda shuruucda taas markaa inaga dhaawacaysa waxaan u baahanay aad iyo aad arka iskaashatahan iyo maamulahan aad uga taxadirtaan talabaad waxa weeyaan shuruucda dalkeenana in la ixtiraamo oo aday tahay markaa in rar saydaan la saarin gaariga in badqabka gaariga hubisaan intaan gaarigu de safarka gelin in darawaliinta gawaaridiina wadaadee hubisaan ay haystaan liisankii gaariga oo shuruucdii dawladda ka dhan nabadgelyada ku xiran yaani xawaaro sare ku socon si aan shil u dhicin idinku si gaar ah container qaadaan containerku de qiimo gaar u leeyahay garanaysan oo culeysada imka saaran maamulkiina noo sheegeen containerada hore khasaaro gaadhay intaasoo kuna $1 bay marayaan ilaa $40 baa la sheegay in qarashkiisa imka sii marayaan marka mas'uuliyadda darawalku bay ku soo noqonaysaa hadaad u khalad gasho iskaashato lacagta cirka ka helmaysa lacagtii nidu ka meel dhigateen baa laga jaraya markaasaan khasaaro nidii wada gaadhin dalkan aan loo ceebaan oran dalkan darawaliintiisu de meesxdaan soo gaadhooda liita container hadday noqoto raashin la sida hadday noqoto xamuul la qaadayo si nabdoon lagu gaariyo la geeyo la doonayaa dadkan u shaqeynayna soo dhaweysaan berberidee waa tan oo balaaratay oo magaca xarunta dhaqaalaha Soomaaliland dhan ishii dhaqaalaha ugu weyneed weyn Arab iyo Ajam iyo gaala iyo nooc kasta marka halkan suuq imanaya qaarna hore u yimaadeenba dadka in la soo dhaweeyo in adeeg wanaagsan loo qabto in shaqo wanaagsan loo qabto iskaashatay runtii saaranta dawladuna ku ilaalinaysa aad iyo aad baan mar labaad mar saddexaad ku mahadnaqayaa wadadaas markay naga dhameystiranto insha Allah tareenkii baa ku xigo wada hadalkiisu socdo marka waxaasna waa de shaqo abuurka u soo socda reer Soomaaliland
insha Allah ictiraafkana dee wuxuu soo saaray jidka ku soo jira aad iyo aad baan reer Somaliland iyo reer Tawfiiq wartii hambaleenaya geedleyda xabashooyinka sheegteen xildhibaanaduna la fadhiyaan wixii xeerka ku qoran kulli xagga xeerka dibigis baa ku socota waxyaalaha ascaartu keeneen shidaalka qaaliyo waxa dee duruufta marba waxa loo xalinayaa sida oo kala horeen imika abaaraha culays kala saaraya ilaahay abaarta inaga soo jebiyo idinkana waxaad ku hambaleenaad inaad ku dhawaaqdeen inaad diyaar u tihiin in abaarta ka qayb qaadataan horena runtii waad uga qayb qaadan jirteen waxyaalo badan oo dee samafala hadday tahay dhismaha wadooyinka dalka ceergaabo ka mid tahay wadooyinka kale iyo haddii abaarihii hore dhacay yihiin iyo haddii gurmadkii covid-19 tahayba hore uga qayb qaateen tan maantana runtii waa laydinku hambaleynayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawlfudaydiyahaaga maaliyadeed